saraakiisha ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland oo ku sugan magaalada Puntland xarunta gobolka Cayn qaybteeda 95 ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxayna maanta beeniyeen in ciidamo ka tirsan Somaliland oo ku sugnaa deegaanka Araweyn ay ku biireen maamulka Puntland ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada Somaliland oo ka warbixiyay ka timid Puntland oo si xul u faragelinaysa arrimaha ummadda Somaliland ayaa halkan idinku diyaara waxa laaliya waxa duyaale wax maanta ciidankii ka maqan ma jiro kuwa iyo Araweynta wax ka dhacayna hadda ku baxaynaa hadda la ka dhigo bal wixii ka xumaaday aan ogaanay dambiilada soo xirxireen cadaynayna anaga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee fadhigeeda ahaa Araweyn 2016 bishii 6 lagu qarameeyay kuna soo guuray amarka jaranka buuhood ku deganayn labada sanadood shalay beenaawur ka dhacay Araweyn ciidan Puntland oo tagay isku sawiray iyo 8 nin oo naga baxsay anaga oo ciidankeega hawnin la garaaday u watay baan halkan ka beeninaa inay been tahay Puntland waxaan leenahay fargelinta hadayna naga deyn wixii ka dhacay meesha idinka qabo ciidankan waa guutada 9 ee fadhigeedu uu yahay buuhoodle waxa weeyaan arrintii shalayta Araweyn ka dhacday ay ka sameeyeen maamulka Puntland niman ka socdo xildhibaan sheeganaya ciidan oo ay wataan sideed askari oo kantaroolka jooga anaga fakad banaga ah ayay iyo dad ay urursadeen iyo ciidan ay wateen bay sawir ka duubeen ciidankii Araweyn buu ahaa nimankaasi waxba kama jiraan kuwaana talaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadaynaa anagoo ciidanka Somaliland ee degan buuhoodle ah ciidankii Somaliland dhabta hawaka halka ku fayshay annagoo odayaasha reer buuhoodle waxaanu beeninaynaa hadalkii waxba kama jiraan ka hay barabagaadada iyo been abuurka ahaa ee shalay koox Puntland uu ka sameeyay Araweyn waxaanu ku beeninaynaa ciidankii qaranka Somaliland ee Araweyn joogay ee amar dawlad kaga soo guuray 9 bilood ka hor saldhigii ciidan ee loo sameeyay inuu degan yahay kuna dhan yahay wuxuu Puntland la galay iyo wuxuu ka noqday midna uusan jirin uu dhisan yahay ee dawladdu hore warqadoodii sameysay iyaguna si degdeg ah hawlgalkiisa iyo nidaamkiisa inay u soo dhameeyaan noona soo dhameeyaan ciidankaas soo qardhactiraan dad aan waxba ka ahaan jirin ba ku soo duulay Hussein Hassan Ade telefishinka caalamiga Home Cable Puntland.